intii u dhaxaysay sanadihii 2015 iyo 2016 heerarka dilalka ka dhacay dalka El Salvador waxay gaareen in ka badan 100 kiis oo dil ah in loo geystay 100,000 ee qof ee kasta, kuwaasi oo ka mid ah shacabka dalkaas. Tani waxay ka dhigan tahay in dilalka sanadahaasi kaliya ka dhacay El Salvador ay xitaa ka badan yihiin kuwii ka dhacay dalalka Soomaaliya, Syria ama Ciraaq, weliba xiliyadoodii ugu xumaa. Arrintaas waxay sababtay in El Salvador lagu qiimeeyo dalka ugu khatarta badan dunida, gaar ahaan maadaama dhammaan dilalkan ay dhaceen iyada oo dalka uusan dagaal ku jirin, halkii ay ahayd in dadkiisu ay nabad ugu noolaadaan toddobaad kasta. Maye aan dhahno maalin kasta dad ayaa la dilayay. Wadooyinka ku yaala magaalooyinka waaweyn badanaa waxay ahaayeen kuwo midabkoodu uu guduud isu bedelay. Sababta wax kale maaha, dhiig ayaa qulqulayay. Iyada oo xaaladaasi lagu jiro ayaa haddana dadka badankood waxaaba caadi la noqotay in ay arkaan meydadka daadsan wadooyinka. Waxaanu ka sheekeynayno ma ahan filim khiyaali ku dhisan, waa dhab, waa xaqiiqo meel walba taala. Dhowr sano ka hor El Salvador waxay ahayd xarunta dembiyada adduunka, gaar ahaan waxay martigelisay 2 kooxood oo ka mid ah gaangiska ugu waaweyn caalamka. Waa kuwo lagu kala magacaabo Mara Salvatrucha, loona soo gaabiyo MS-13 iyo Barrio 18. Labadan kooxood waxay samaysteen dowlado gudaha ah oo ka hoos shaqeeya dowladdii dhammayd ee rasmiga ahayd. Waxay dadka ku soo rogeen xeerar iyo canshuuro kala duwan. Xitaa waxa ay ka xoog badnaadeen dowladda laftigeed. Labadaas koox mid kasta goonideed ayay u aasaasantay una madax bannaanayd. Mid walba aag gaar ah ayay xoraysatay oo ay ka talinaysay. Laakiin mid aan kugu bishaareeyo, dhammaan sheekooyinkan waa kuwo hore u dhacay, ma ahan wax hadda taagan. Hadda El Salvador waxa ay noqotay beerta nabadda ee labada qaaradood. Waa Ameerikada waqooyi iyo tan koonfureed, ama xitaa aan dhahno caalamka oo dhan. Labadii sano ee 2023 iyo 2024 kiisaska dilalka ee la diiwaangeliyey waa 268 kiis oo keliya, halka labadii sano ee 2015 iyo 2016 isku darkooda tirada dilalku ay gaareen 11,934 kiis. Yacni hal bil oo waqtigaas ka mid ah dilalkii dhacay waxay ka badan yihiin isku darka labada sano ee 2023 iyo 2024. Halkaas waxaa ka muuqda in nabadgelyada dalkaas ay wax weyn iska beddeshay oo weliba isbeddel togan ah. Laakiin yaa ka dambeeyay nabaddaas? Yaa kale he? Waxaa ka dambeeyay ninkan uu sawirkiisu noo muuqdo. Waa hogaamiye asal ahaan ka soo jeeda Falastiin. Waxa uu la baxay naanaysta cool dictator, yacni kaligii taliyaha qabow. Najib Bukele waa ninka sameeyey wax dadka badankood ay ku tilmaameen mucjiso dhab ah. Maxay yihiin waxaas uu sameeyey? Wadooyinka uu u maray, waxa uu sahlay, iyo heerka uu dalka gaarsiiyey hadda waa sidee? Halkan waxaan idinkula wadaagaynaa sheekada ku saabsan isbeddelka togan ee ku dhacay dalka El Salvador, sidii arrinkaas loogu guulaystay, iyo casharka ku dayashada mudan ee ku dhex jira mowduucan. Nala soco, halkan waa Itaal Media. Halkan waa El Salvador, waa mid ka mid ah dalalka ugu yar ee ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika. Bedka dhulkiisu waa 22,041 kiiloomitir oo laba jibaaran. Wuxuu wax yar ka yar yahay bedka dalka Djibouti oo 23,200 kiiloomitir oo laba jibaaran ah. Dalka 153aad marka la eego kala horeynta baaxadda dalalka dunida. Laakiin marka la eego tirada dadka, wuxuu ku jiraa kaalinta 109aad. iyadoo dadkiisu ay ka badan yihiin 6,500,000 oo qof. Tiradan 6 milyan iyo barka ah waxaa laga yaabaa in ay ka badnaan lahayd intaas, laakiin dalka waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka ugu badan ee dadkiisu ay ka qaxaan. Dadka reer El Salvador waxa ay inta badan ka carareen dalkooda iyaga oo raadinaya nabad, amni iyo nolol ka wanaagsan tan dalkooda taala. Waxay u carareen wadamada deriska ah iyo Mareykanka, meesha dad badan oo dunida saddexaad ku noolaa ay u tahriibeen. Meesha qaarkeen hadda muuqaalkan daawanaya ay ku riyoodaan in ay u guuraan. Bilowgii qarniga 21aad waxaa dhacay tahriib weyn oo ay sameeyeen dhalinyaradii dalkaas, gaar ahaan
jiil dhan ayaa u qaxay Maraykanka. Arrintan ayaa keentay in Maraykanku uu farageliyo siyaasadda iyo dhaqaalaha El Salvador, iyadoo ujeedku uu ahaa in la xakameeyo qulqulka muhaajiriinta, gaar ahaan markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee El Salvador ka socday intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1992. Dagaalkaas sokeeye waxa uu ka bilowday markii la dilay nin lagu magacaabi jiray Oscar Romero oo ahaa codka dadka dabaqada hoose ee dalka. Dilkiisu waxa uu dhiirigeliyey garabka bidix ee siyaasadda in uu ka hortago dowladda oo lagu eedeeyey in ay iyadu ka dambeysay dilka ninkaas. Shacabkii ayaa ku kacay dowladda iyaga oo mucaaradka taageeraya. Kadib haddana shacabku wuu sii kala jabay heer kooxo la kala noqday oo la iska soo horjeestay. Waqtigaas dagaalkii qabooba ee u dhaxeeyay Sofiyeedka iyo Maraykanka ayaa si xooggan u saameeyay El Salvador. Sida Maraykanku uu hadda u farageliyo Yurubta bari oo kale, Sofiyeed ayaa faragelinayay Ameerikada dhexe iyo tan koonfureed. Dowladda iyo ciidanka El Salvador waxa ay taageero ka helayeen Washington, halka garabka bidix oo mucaaradka ahana uu helayay taageero weyn oo ka imaanaysay Sofiyeedkii shuuciga ahaa. Xaaladaas ay hurinayeen Maraykan iyo Sofiyeed ayaa dhalisay dagaal sokeeye oo ba'an, kaasoo sababay ku dhowaad 75,000 dhimasho, 10,000 qof oo la waayay nolol iyo geeri, iyo in ka badan 1 milyan ruux oo qaxooti noqday. Dagaalku ma joogsan, uu iska sii socday ilaa maalinkii dambe uu Sofiyeedku burburay. Kadib burburkaas uu Sofiyeedku burburay, El Salvador waxay isku beddeshay dal u janjeera oo saaxiib la ah dhinaca reer galbeedka ee ku dhaqma dimuqraadiyadda. Laakiin sidaas oo ay tahay, dowladda dimuqraadiyad la sheego kuma dhaqmayn. Tartanka siyaasadda waxaa isku koobay oo uu u xirnaa 2 xisbi oo keliya: Arena oo xisbi midigta jira ah, ama aan si kale u dhahno xisbiga conservative-ka oo muxaafad ah, iyo FMLN oo xisbi bidixda jira ama xisbi kacaandoon oo mucaarad ah. Inkastoo ay ku kala aragti duwanaayeen siyaasadda, haddana labaduba waxa ay heshiis ku ahaayeen oo ay ka sinnaayeen dowlad ku dhisan maamul xumo, musuqmaasuq iyo taagdaraynta hay-adaha dowladda, gaar ahaan kuwa ammaanka. Halkaas aan leenahay taagdaraynta hay-adaha dowladda aan sharaxno. Waxay samayn jireen in dad aan ahal u ahayn xilalka sare loo magacaabo saaxiibnimo, qaraabanimo iyo dana gaar ah. Waxaa afka loo dhigan jiray mushaaraadka iyo qarashaadka shaqaalaha dowladda. Labada xisbi isku mid ayay uga shaqayn jireen howlaha dowladda. Taas darteed waxaa dhumay niyadda dadkii ay ahayd in ay dowladdoodii nafta iyo waqtiga u huraan. Halkaas waxaa ka abuurmay in kooxaha burcadda ama gaangiska ay ka xoog badnaadaan dowladda. Gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee lagu magacaabo San Salvador waxa ay noqotay xarunta maafiyada adduunka. Ma ahayn burcaddii gudaha ka hana qaaday oo keliya, ee waxay soo dhaweysay oo martigelisay nooc kasta maafiya ah oo caalamka isaga kala yimid. Kooxaha kala ah Mara Salvatrucha iyo Barrio 18 waxay bilaabeen in ay si tartiib ah u maamulaan bulshada, iyaga oo dhidabada u taagay xeerar iyo canshuuro ka madax bannaan tii dowladda. Arrintaas waxay culays lixaad leh ku noqotay shacabka dalkaas ee saboolka ah. Jóvenes de la pandilla de la Mara Salvatrucha, ka dhalinyaro ahaan oo ka tirsan Mara Salvatrucha, ku adkaysiga aan ku adkaysanayno ereygeenna waa mid sharci ah. El Salvador waxay u ekaatay meel aan loogu talagelinba in ay ku noolaadaan shacab iska caadi ah. Waxaa lagu tilmaami jiray in ay tahay hooyga gabaadka u ah kooxaha maafiyada ee gala dambiyada culus. Markii uu qarxay dagaalkii sokeeye, awooddii dowladda ayaa daciiftay. Kooxihii burcadda ee abuurmay waxa ay xusulduub u galeen in aysan samaysmin dowlad kale xoog leh oo xakamaysa ficiladooda guracan ee ay shaydaannimadu ka buuxdo. Hadafkoodu waxa uu noqday in ay falalkooda u madax bannaanaadaan oo la waayo maamul sharci ah, awoodna leh oo wax ka qabta iyaga. Dhab ahaanna muddo kooban gudahood, burcadda El Salvador waxa ay noqdeen kuwa ugu awoodda badan Latin America, gaar ahaan labada kooxood ee kala ah Mara Salvatrucha oo loo soo gaabiyo MS-13 oo macno ahaanna u taagan burcadda ugu xariifsan Salvador, iyo Barrio 18 oo macno ahaan u dhigma kooxda xaafadda 18aad. Mara Salvatrucha ama MS-13 kooxdan asalkeedu waxa ay 80-yadii qarnigii hore ku aasaasantay magaalada Los Angeles, gobolka California ee cariga Maraykanka.
waxaa aasaasay dhalinyaro ka soo qaxay bartamaha Ameerika, gaar ahaan dalka bahalgaleenka noqday ee El Salvador, kuwaas oo isu bahaystay si ay iska difaacaan kooxo kale oo magaalada ka talinayay. Si degdeg ah ayay u muujiyeen awoodooda ay kaga hortagayeen kooxaha kale ee xadgudubka ka waday xaafadihii ay ku badnaayeen dhalinyarada El Salvador ka soo tahriibtay. Markiiba waxay kasbadeen magac iyo in si weyn looga cabsado gudaha Los Angeles. Kadib waxa ay kooxdu isku fidisay gobollo kale oo Mareykanka ah ilaa ay xitaa gaareen dalal kale sida Canada iyo Mexico. Ugu dambeyn, dowladda Mareykanka oo aragtay awoodda sii kobcaysa ee kooxdan ayaa bilowday in si tartiib ah dib loogu xawilo dalkooda. Sidaasna waxa ay ku noqdeen xoogga ugu weyn bartamaha Ameerika: El Salvador, Guatemala, Honduras iyo dalal kale. Tirada rasmiga ah lama yaqaan, laakiin qiyaas ahaan maleeshiyaadka hoostaga kooxdan waxaa lagu sheegaa oo lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 50,000 xubnood oo ku faafsan dalalka dibadda ka ah El Salvador, iyo ku dhowaad 10,000 oo ku nool gudaha Mareykanka. Mareykanka laftigiis ayaa markii dambe qaati ka istaagay, wuxuuna bilaabay in uu dabagalo, xirxiro, mararka qaar dilo oo siyaabooyin kala duwan u ciqaabo. Inkasta oo Mareykanku uu si joogto ah u dabagalo, u xirxiro, una cadaadiyo, haddana waxa ay heleen meel ay ku nastaan, ku nafisaan, gabaad ka dhigtaan oo ay kaga dhuuntaan howlgallada Mareykanka. Meel kale maaha, waa dalka El Salvador oo dowlad ahaan aad u jilicsanaa waqtigaas. Kaliya gudaha El Salvador waxa ay ku lahaayeen ku dhowaad 30,000 oo xubnood, waxayna gacanta ku hayeen kala bar dalka, iyaga oo si dhow ula tartamay kooxda kale burcadda ah ee iyana aad u weyn, Barrio 18. Kooxdan ayaa iyadana si la mid ah kooxda M13 ee cadowgeeda ah waxaa lagu aasaasay gudaha Mareykanka, gaar ahaan magaalada Los Angeles, balse way da'weyn tahay oo waxaa dhidibada loo taagay 60-yadii qarnigii hore. Waxay ka go'een koox kale oo weyneed oo la dhihi jiray Carlton 14, waxaana markaas bilowday dagaal culus oo ay la galeen kooxdii hore oo ay ka go'een iyo kooxo kale oo badan. FBI-da Mareykanka ayaa si xoog leh ula dagaalantay, taasoo keentay in hogaamiyaashii kooxda badankoodii ay u qaxaan El Salvador 1990-yadii. Halkaas ayay kooxdu ku kortay, kuna naaxday. Waxay isku fidisay deegaano badan oo dalka El Salvador ah, ilaa ay ka gaartay heer ay noqoto kooxda xifaaltanka ugu adag kula jirta kooxda kale ee M13 ah. Tirada xubnaheeda ee gudaha El Salvador ka howlgala waxa ay gaareen 30,000 oo ruux. Wixii markan ka dambeeya, M13 iyo Barrio 18 ayaa si dhab ah u kala qaybsaday gobollada iyo magaalooyinka dalka, gaar ahaan caasimadda San Salvador. Labadooduba waxa ay haysteen ciidan hubaysan oo ka xoog badan booliska iyo ciidamada kale ee ammaanka, waxayna dadweynaha, shirkadaha iyo ganacsatada ku qasbeen in ay bixiyaan canshuur sharci darro ah. Xitaa waxa ay ku lug yeesheen siyaasadda. Waxay abuuri jireen, soo barataari jireen xildhibaanada, wasiirada, taliyayaasha iyo xilalka kale ee muhiimka ah qaarkood. Kasoo bilow 1992, dowlad kasta oo timaada waxa ay heshiis qarsoodi ah la galaysay kooxahan. Xitaa haddii dowladda ay rabto in ay waxoogaa awoodeedii muujiso, waxay la xiriireysay madaxda burcadda. Waxaa dhacaysay in arrintaas laga heshiiyo. Dowladda ayaa lacag bixinaysay, kadib waxaa la isku afgaran jiray in rag burcadda ka tirsan la soo qabto si dadweynaha iyo dowladaha danaha ka leh El Salvador loo tuso waxqabadka dowladda. Kadib, haddii la doono si hoose ayaa loo sii dayn jiray raggii burcadda ka tirsanaa ee la soo qabtay. Xisbiyada iyo xarumaha kale ee dowladda waxa ay u ekaayeen hoteello 5 stars ama 5 xidiglayaal ah oo kale, yacni meel lagu nasto mooye aan shaqo lagu qaban. Kooxahan burcadda ah waxyeelooyinkoodu kuma koobnayn in ay deegaano qabsadeen, xeerar qallafsan ka hirgeliyeen, iyo in ay dadka ka urursanayeen baad ay canshuur ku sheegeen. Dhibta ay abuureen keliya haddii loo bareero in laga sheekeeyo, waxaa suurtagal ah in loo baahdo saacado dheeraad ah. Laakiin aan soo koobno. Kooxahan waxa ay mas'uul ka ahaayeen dilal badan oo la xiriira aargudasho, dilal gaadma ah, dhul boob iyo iska hor imaadyada burcadda dhexdooda ah. Waxa ay bulshada ku hayeen jirdil, afduub, kufsi, dil iyo cabsigelin joogto ah. Tani waxa ay dhalisay in dad badan ay ka barakacaan guryahooda si ay u helaan meel kale oo ay ku nabadgeli karaan. Kooxahan burcadda ah waxa ay ganacsatada iyo shacabka ka qaadi jireen baad iyo canshuur sharci darro ah. Ciddii bixin weysa waxa ay ugu hanjabi jireen
in ay dili doonaan ama ay waxyeello u geysan doonaan qoysaskooda. Hanjabaad oo keliya ma ahayn, wayba fulin jireen. Waxaa la diiwaangeliyey dhacdooyin badan oo foolxumo leh oo ay shacabka kula kaceen. Iyaga oo awood adeegsanaya waxa ay xakamayn jireen ganacsatada yaryar. Waxaa suuqa loo xiri jiray shakhsiyaad gaar ah oo ka mid ah ganacsatada waaweyn, kuwaasi oo laaluush laga qaadi jiray. Xaaladahaas murugsan dartood, maalgashadayaasha ajnabiga ah way ka fogaadeen in ay maalgashadaan El Salvador, sababtoo ah cabsida iyo amniga xun ee ka jira dartood. Markii ay ganacsiyadu yaraadeen, maalgashigu meesha ka baxay, xarumo badan oo dhaqaale abuuri lahaa ay amni xumo u xirmeen. Dad badan oo dhalinyaro ah ayaa shaqo la'aan noqday, taasoo qaar ka mid ah ku riixday in ay ku biiraan isla kooxaha burcadda laftigood. Ganacsiga ugu ballaaran, ugu sahlan, uguna dhaqaalaha badan waxa uu noqday darooga iibinta. Dhalinyarada badankoodii shaqadaasi ayay arsaaqad ka raadiyeen. Muqaadaraadka oo meel walba yaala dartiisii bulshada badankeed, yar iyo weyn, waxa ay qabatimeen daroogada. Dhaqaale xumida iyo isticmaalka daroogada awgood, qoysas badan ayaa kala tegay, iyada oo waalidiin badan iyo carruurtoodii ay ku qasbanaadeen in ay ka cararaan dalkooda si ay noloshaas mid dhaanta u helaan. Cabsidu waxa ay noqotay mid joogto ah. Qofkii in yar bannaanka uga baxa guriga in uu nabad ugu soo noqdo ayaa welwel laga qabay. Nolosha El Salvador sidaas ayay ku noqotay mid dunida loogu aqoonsaday dalka ugu khatarta badan caalamka. Iyada oo sidaasi xaalku u yahay, ayuu haddana Maraykanku inta uu soo qabto maafiyada ayuu Salvador ku soo celin jiray. Dambiilayaal laga soo musaafiriyey gobollada Maraykanka ayaa la soo qabtay oo la keenay El Salvador, taasoo sii horisay dhibaatadii dalkaasi ka jirtay. Marxaladaasi adag iyo xaaladahaasi murugsan ayay ku noolaayeen shacabka El Salvador ilaa uu maalinkii dambe soo muuqday hogaamiye ku cusub siyaasadda, kaas oo ballan qaaday in uu si buuxda u bedelayo nolosha dadka El Salvador. Joogitaankayga halkan aan joogo maanta wuxuu ka dhigan yahay hal arrin oo keliya. Waxa aan suurtagalka ka ahayn El Salvador in ay suurtagal noqdaan. Magaciisu waa Nayib Bukele, ama sida ay dadka qaar ugu yeeraan Nayib Abukela ama Nayib Bukela. Dhammaan waa hal qof. Sidii aad ugu dhawaaqdo iyo qaabkii aad u dhahdaba waa isla halkii nin. Ninkaas waxa uu si lama filaan ah uga soo muuqday nolosha dadka reer El Salvador, isaga oo sameeyey wax lagu tilmaamay in ay ahaayeen mucjiso ama wax aan macquulba ahayn. Nayib waa nin dhalinyar asal ahaan Carab ah, gaar ahaan Falastiin. Awowgiis waxa uu ka soo jeedaa magaalada Qudus, halka ayeeyadiis ay ku dhalatay Baytulaaxim. Qoyska xagga caqiidada asal ahaan waa Masiixiyiin, hase yeeshee aabihiis Armando Bukele Qatan ayaa 1970yadii waxa uu qaatay diinta Islaamka. Armando waxa uu ahaa imaam iyo caalim xagga diinta, sidoo kalena waxa uu haystay shahaadooyin sare oo kemistriga iyo sharciga uu ku diyaariyey. Intaas waxaa dheer, waxa uu ahaa ganacsade guulaystay oo lahaa shirkado badan oo xagga shaqada ay ka caawin jireen carruurtiisa 11 ah oo uu ka mid yahay Nayib. Waxaa la sheegay in aabihiis uu xiriir dhow la lahaa bulshada Falastiiniyiinta ee ku nool El Salvador, kuwaas oo 2% ka ah guud ahaan shacabka El Salvador. Nayib hooyadiisii dhanka kale waa El Salvadoriyad Katoolig ah. Sidaas ayuu ugu dhex barbaaray qoys ballaaran oo isku dhafan. Shaqadii ugu horreysay ee uu qabtay waxa ay ahayd dhanka xayeysiiska badeecada iyo suuqgeyntooda, isaga oo aasaasay shirkad yar oo howlahaasi ka shaqaysa. Laakiin inkasta oo uu ku jiray ganacsiga, haddana waxa uu lahaa dabeecad iyo hami siyaasadeed oo xooggan. Sanadkii 2011, Nayib waxa uu ku biiray xisbiga bidixda ee FMLN oo laga soo gaabiyey Farabundo Marti National Liberation Front. Xisbigan waxa uu xiriir qoto dheer oo taariikhi ah la lahaa shakhsiyaad kale oo Falastiiniyiin ah, gaar ahaan Shafeeq Handal oo ahaa mid ka mid ah aasaasiyaashii xisbiga, isla markaana saaxiib dhow la ahaa aabihiis Armando. Waqtigaas xisbiga FMLN waxa uu caan ku ahaa in uu taageero xooggan u muujiyo qadiyadda Falastiin, taasoo Nayib si dabiici ah u soo jiidatay. Sanadkii 2012, isaga oo taageero ka helaya aabihiis, waxa uu noqday gudoomiyaha degmada Coastland oo ka tirsan caasimadda. Guulihii uu ka gaaray halkaas awgeed,
waxaa 2015 loo doortay duqa magaalada San Salvador caasimadda El Salvador. muddadii uu xilka hayay waxa uu helay sumcad wanaagsan oo ku saabsan hogaamin hufan, laakiin sanadkii 2017 waxaa laga eriyey xisbiga FMLN isaga oo lagu eedeeyey in uu jebiyey qawaaniintooda gudaha. Najiib isagu waxa uu sheegay in sababta dhabta ah ee loo eriyey ay ahayd in uu wax ka sheegay hoggaanka xisbiga oo uu ku eedeeyey musuq iyo waxqabad xumo. ereygaas kadib Najiib waxa uu aasaasay dhaqdhaqaaq cusub oo la yiraahdo Nuevas Ideas, fikradda cusub, isaga oo heshiisyo la galay xisbiga midigta u janjeera. wuxuu helay taageero ballaaran, ololihiisii siyaasadda ayuu xoojiyey, si la mid ah sidii uu ganacsiga xayisiis iyo suuqgeyn ugu samayn jiray ayuu markan fikradihiisii siyaasadda uga iibiyey shacabka iyo siyaasiyiinta kale qaarkood. sanadkii 2019 wuxuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaas isaga oo helay 53% codadkii ay shacabku dhiibteen. waxay ahayd guul lama filaan ah oo burburisay nidaamkii hore ee siyaasadda. si kastaba ha ahaatee, Najiib inkasta oo siyaasadda uu asal ahaan dhanka bidix ka soo baxay, haddana markii uu madaxnimada qabtay waxa uu si cad u muujiyey taageero iyo jacayl uu u hayo Israa'iil. laakiin sabab waxaa la sheegaa in uu rabay in uu soo dhaweysto reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka, isagoo og in Israa'iil ay tahay furaha qalbiga ee siyaasadda Maraykanka. taasna waa waxa uu ku helay taageerada iyo kalsoonida uu maanta ka haysto Washington. taageeradan Maraykanka ayaa noqotay gaashaan uu ku xoojinayo dalkiis. wuxuu rabay in uu ka madax bannaanaado cid kasta oo dibadda ah, si uu gudaha ugu sameeyo wixii uu doono, isaga oo aan la hor istaagin, la faragelin, isla markaana aan saamayn lagu yeelan. waxaa la sheegay in markii uu talada qabtay 2019 in uu bilowgii hore ku dhaqaaqay siyaasad ay hore u isticmaali jireen madaxweynayaashii ka horreeyey, taasoo ahayd in la sameeyo heshiisyo hoose oo lala galo burcadda waaweyn si xaaladda dalka loo dejiyo. taas waxa uu uga dan lahaa in uu muujiyo in uu yahay hogaamiye xoog leh oo gacanta ku haya talada dalka. dhanka kale, Najiib waxa uu aad uga faa'iidaystay baraha bulshada. wuxuu isku soo bandhigay in uu yahay madaxweyne dhalinyar ah, casri ah, oo dadkiisii la dareen ah oo ku dhex nool iyaga. wuxuu bilaabay in uu shacabka caadiga ah la kaftamo, xifaaleeyo, la madadaasho. markii ay qaarkood ku naanayseen kaligii taliyaha cusub, isaguna waxa uu kaftan ahaan ugu jawaabay, haa, kaligii taliye ayaan ahay, laakiin waxaan ahay kaligii taliye qabow. sidaas ayuu ku helay naanaysta cusub ee ah kalitaliska qabow. madaxweyne kaftan badan oo dabacsan ayuu ahaa bilowgiisii hore, laakiin qosolka iyo muuqaalka dhalinyaranimo wax kale ayaa ku hoos dugnaa. Najiib waxa uu qorsheeyey wax ka duwan oo aad uga qoto dheer wixii laga filayey. ha ku sirmin muuqaalkiisa dhoola caddaynta leh iyo qaabka dabacsan ee uu dadka ugu muuqdo. dad badan waxa ay arkaan furfurnaanta wejigiisa iyo dhoola caddayntiisa, waxayna u maleeyaan in Bukele uu yahay madaxweyne jilicsan ama daciif ah. laakiin waa dhimbil dambas ku hoos aasan. isku qarinta muuqaalkiisa qurxoon iyo dabacsanaantiisa waaba xeeladiisa ugu weyn ee siyaasadda. Bukele waa nin xeelad yaqaan ah oo aan la saadaalin karin. sanadkii 2019 wuxuu markii hore ogolaaday in uu nabadgeliyo kooxaha maafiyada ee dalka ka jira. kooxaha maafiyada ayaa u maleeyey in uu daciif yahay, tabar xooggan haynin, sidii kuwii isaga ka horreeyey aysan talo farihiisii ku jirin oo ay ka maqan tahay. taasoo keentay in ay howlgalladooda sii kordhaan, isdhigtaan. laakiin Bukele waxa uu qorsheeyey wax ka weyn filashadooda. si hoose waxa uu u bilaabay in uu ka shaqeeyo xoojinta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sida booliska, militariga iyo sirdoonka. tababarka ciidamada, qalabeyntooda iyo u diyaarintooda howlgallada muhiimka ah waxaa laga hormariyey shaqooyinkii kale ee dowladda. khubaro aqoon iyo waaya aragnimo u leh, laguna kalsoon yahay ayuu u xil saaray si ay si hoose u diyaariyaan qorshe dahsoon oo la xiriira la dagaalanka burcadda iyo ciribtirkooda. bishii Maarso 2022 Bukele si lama filaan ah ayuu u jebiyey heshiiskii kala dhexeeyey kooxaha gaangiska ee dembiyada caadaystay. wuxuu qaaday howlgallo culus oo isdaba joogna ahaa. wuxuu soo qabqabtay qaar ka mid ah hogaamiyaasha burcadda kuwii ugu awoodda badnaa,
taasoo keentay in kooxuhu ay xanaaqaan oo bilaabaan dagaal waddooyinka dhexdooda ah. ujeeddadoodu waxay ahayd in ay muujiyaan in ay weli awood ku leeyihiin caasimadda, taasoo keentay in ka badan 60 qof oo rayid ah la dilo. saxafiyiinta qaar waxa ay arrintan u bixiyeen xasuuqii weynaa. burcadda dhexdoodii ayaa dagaalamay si mid kasta ay awooddoodii u soo bandhigto. maalin kasta waxaa sii kordhayay dilka iyo waxyeelada kale ee ay burcaddu isu geysanayso, dadka shacabka ahna ay saameyn ku yeelanayso. faktii hore Bukele waxa uu booliska amar ku siiyey in aysan faragelin dagaalka burcadda dhexdooda ah, si shacabku ay u arkaan sawirka dhabta ah ee arxandarada kooxahan. markaas Bukele waxa uu bilaabay qaadista tallaabo intii hore ka sii adag oo si qorshaysan loo fuliyey. booliska iyo militariga waxaa la siiyey awood sharci oo gaar ah, sida in dil toogasho ah ay ku fulin karaan burcadda haddii ay diidaan in ay isdhiibaan. waxaa la bilaabay maxkamado si fagaare ah loo qabto, yacni in xubnaha burcadda lagu hor maxkamadeeyo dadweynaha iyo warbaahinta hortood. bilooyin gudahood waxaa la qabtay kumanaan xubnood oo ka tirsan kooxaha burcadda. Bukele sidoo kale waxa uu dhisay xabsiga ugu weyn dalka, kaas oo loogu magac daray xabsiga argagixisada. halkii mar waxa uu qaadi karaa 40,000 oo maxbuus. dhowr bilood oo uu howlgalku socday kadib, xabsiga wuu buuxay, waxaana xabsiga la dhigay xubnaha kooxahaas ee dembiyada waaweyn galay, weliba qaarkood hogaamiyaal ah. Bukele howlgalkaasi uu qaaday waxa uu u bixiyey dagaalka ka dhanka ah burcadda. wuu sii waday howlgallada, marnaba looma neefin burcadda ilaa la gaaray guul qaran oo la taaban karo, ilaa la arkay isbeddel weyn oo muuqda. dadka reer El Salvador waxa ay u arkeen Bukele si ka duwan sidii ay marka hore u arkayeen. waxay aqoonsadeen in uu yahay geesi dhab ah oo u bareeray in uu la dagaalamo burcadda oo madaxdii isaga ka horreysay ay ku dhici waayeen, kuwaasoo iska laaluushi jiray baqdin ay ka qabeen darteed. taas waxa ay Najib Bukele u fududeysay in uu mar kale ku guuleysto doorashadii la qabtay 2024. xitaa isagoo dadku ay ogaayeen in uu wax ka beddel ku sameeyey dastuurka dalka si uu mar kale u tartamo darteed. Najib ka hor, dadka dowladda u shaqeeya waxa ay ahaayeen gacan ku gambad, kuwo meel walba loo taagan yahay oo dilal gaadma ah lagu fuliyo. xitaa askartu xor ma ahayn. marka ay shaqada ciidanimo ku jiraan, waxa ay ku qasbanaayeen in ay afka soo duubtaan si ay heebtoodii u qariyaan. haddii kale, inta guryahoodii loogu tago ayaa la dili jiray ama qoysaskoodii lasoo afduubi jiray. xaafadaha ay burcaddu ku badan tahay, askartu ma awoodin in ay howlgal ka soo fuliyaan. askartu mushaar oo keliya ayay dowladda ka fiirsan jireen, oo wax shaqo muuqda ah oo ay qaban jireen ma jirin. madaxda dowladda laftigood diyaar uma ahayn in shaqo ciidan oo macno leh la qabto. howlgalladii Najib Bukele waxaa ka soo baxay in ciidanku uu awood muuqda yeesho, saameyntii burcadduna ay si degdeg ah u shiiqdo. inkasta oo aan weli si kama dambays ah loo ciribtirin kooxihii burcadda, haddana waxaa socda dagaal cad oo lagula jiro kooxahaas. si nidaamka iyo kala dambeynta loo soo celiyo, Bukele waxa uu muujiyey in muuqaalkiisa dhoola caddaynta iyo kaftanka ay tahay xeelad gundheer oo beddeshay xaaladii El Salvador. waxaa la dhihi karaa waxa uu sameeyey mucjiso siyaasadeed iyo mid amni oo dalka oo dhan beddeshay. 4 sano ka hor waxaan ahayn dalka ugu halista badan caalamka. mararka qaar waxa keliya oo ay dadku nagu xasuusan kareen waxa uu ahaa in aanu nahay dalka ugu horeeya caalamka ee dhinaca amni darida. ka hor inta uusan Bukele xilka qaban, El Salvador waxa ay ahayd dal ku dhisan fawdo iyo xadgudub. sidii aan hore u sheegnay, xeerarka iyo sharciyada dalka waxaa badanaa maamuli jiray kooxaha burcadda, waxaana dadku ay ku noolaayeen xaalad aad u adag. qiyaastii 30% dadka waxay ahaayeen dad sabool ah oo ku nool xayndaabka faqriga. xaalad shaqo la'aan oo heerkeedu uu sarreeyo iyo shaqooyin kale heli karo oo aan ahayn kuwa rasmi ah ayaa badnaa. dalka wuxuu isticmaalayay doolarka Mareykanka tan iyo 2001, taasoo ka hor istaagtay ama dhumisay jaangoynta siyaasadda lacagta gudaha.
dhaqaalaha waxa uu ku tiirsanaa lacagaha ay qurbo joogtu usoo dirayeen qaraabadooda oo qiyaastii ka dhigan 25 rubac ama 4 meelood meel dakhliga gudaha. waxaa jiray dhibaatooyin kale oo badan. waxa uu burbur xoog leh ka jiray kaabayaasha dalka sida wadooyinka, isbitaalada, dugsiyada iyo adeegyada kale ee asaasiga ah. nidaamka caafimaad oo liita, gaar ahaan meelaha ka baxsan caasimadda. waxbarashada oo xadidan. in ka badan kala bar dhalinyarada ma dhammaystiran marxaladda dugsiga sare. jaamacad warkeed haba sheegin. beeraha iyo wax soo saarka gudaha oo liitay. ganacsiga dibadda oo aan dheelitirnayn. tusaale, waxay soo degsanayeen in ka badan inta ay iyagu dhoofiyaan. maxay dhoofiyaanba aan ka ahayn daroogo iyo xubnaha bani aadamka. bulshada dhexdeed farqi weyn ayaa ka jiray xagga dabaqadaha nolosha. dabaqadda hoose waxay ahayd mid liidata oo sii baaba'aysa. dabaqadda sare ama qoysaska taajiriinta ayaa ahaa kuwo lacagta dalka xaday oo ku tiirsan awoodda ciidamada iyo maleeshiyaadka kale ee hubaysan. waxay taageero ka heli jireen wadaadada kaniisadaha oo wax walba u xalaalayn jiray. ganacsigooduna waxa uu u badnaa mid sharci darro ah. dabaqadda hoose waxay ahaayeen kuwo ku nool nolol cakiran oo ka hooseysa diilinta saboolnimada. najiib bukelle markii uu la dagaalamay kooxaha burcadda waxay abuurtay xasilooni weyn oo laysku halayn karo. amnigaas iyo xasiloonida isku halaynta leh waxa uu soo jiitay maalgashadayaasha iyo dalxiisayaasha caalamiga ah. dakhliga dowladda ayaa kordhay ilaa 5% sanadkii 2023. sicir bararku waa uu yaraaday. lacagaha ka soo xaroonaya dibadda ayaa kordhay, taasoo si weyn wax uga beddeshay guud ahaan nolosha dadka. najiib bukelle waxa uu soo bandhigay fikrado cusub oo dhaqaale lagu samayn karo. waxa uu aqbalay lacagta danabaysan ee bitcoin loo yaqaano, taasoo noqotay qayb ka mid ah lacagta rasmiga ah ee El Salvador. wuxuu dalka ka dhigay caasimadda lacagaha dijitaalka. wuxuu bilaabay mashruuc dhaqaale bitcoin ah oo maalgelin lagu helayo dhibco gaar ah. wuxuu furay mashaariicyo waaweyn oo kaabayaal ah sida tareenka korontada ku shaqeeya, tunnelka magaalooyinka isaga dusa iyo kuwo kale. dhanka dalxiiska, bishii January 2025 dalka waxaa booqday in ka badan 350,000 oo dalxiisayaal ah. dakhliga ka soo xarooda dalxiiska waxa uu kor u dhaafay 3 bilyan iyo bar oo dollar. waxaa la yaab leh dal ay dadkiisu ka carareen 6 sano ka hor in uu maanta noqday meel soo jiita dalxiisayaasha caalamiga ah, halkaas oo ay dadku hore uga baqeen in ay u safraan. xitaa muwaadiniintiisu ay maqribkii wixii ka dambeeya ka cabsan jireen in ay guriga bannaanka uga baxaan. Bienvenidos a El Salvador. And welcome to El Salvador. bukelle waxa uu dalkiisii u maamulaa sida shirkad ganacsi. wuxuu u arkaa shacabku in ay yihiin kuwo isugu jira howlwadeenno ka shaqeeya shirkadda iyo macaamiil ay shirkaddu u adeegto. dalku in uu yahay shirkad koraysa oo u baahan in loo maareeyo si laxjecli ah. muuqaalka iyo dhoola cadayntuna in ay yihiin qayb ka mid ah xeeladda suuqgeynta. isaguna waxa uu isu arkaa in uu yahay maamulaha shirkadda. bukelle waxa uu sameeyey heshiis uu la galay Maraykanka si la dagaalanka burcadda loo xoojiyo, amniga maxaabiistana loo sugo. maafiyada laga soo qabto gudaha Maraykanka ayaa la keenaa dalka El Salvador si xabsiyada dalkaasi loogu xiro. taas beddelkeed Maraykanka ayaa bixiya dhaqaale badan. halkaasna waa il kale oo dhaqaale oo muhiim ah. adiga oo burcaddii ku dhibtay la dagaalamaya, haddana dhaqaale ka samee hayntooda iyo dhaqan celintooda. xabsiyadii ay burcaddu u arki jireen hoteello ay nasiino ku qaataan, hadda waxaa loo beddelay meel si weyn loogu xakameeyo, loogu dhaqan celiyo, oo xitaa maafiyada dalalka dibaddiisii laga soo qabto lagu edbiyo. maxaabiista xabsiyadaasi ku xiran waxaa laga qaaday dhammaan fursadaha raaxada iyo nafiska. waxaa laga mamnuucay isticmaalka telefoon, internet iyo wixii aalad isgaarsiin ah. waxaa loo diiday ciyaaraha iyo kulamada isboortiga. waxaa la abuuray dagaal dhanka maskaxda ah oo lagu qaaday burcadda kale ee magaalada joogta ee aan weli la soo qaban, taasoo keentay in dembiyadu ay hoos u dhacaan. kaliya maaha gudaha El Salvador, xitaa dalalka kale ee bartamaha Ameerika amni iyo xasilooni intii hore ka duwan ayay dareemeen. bukelle waxa uu dalka ka dhigay sida shirkad cusub oo waqti kooban ku guulaysatay. El Salvador hadda waa dal ammaan ah oo soo jiidasho leh. waa meel ka madax bannaan kooxaha dembiyada. waxaana la filayaa in mustaqbalka uu keeno waxyaabo kale oo cusub. dadka badankiisii waxay u arkaan hogaamiye aan caadi ahayn.
Bukele oo laga yaabo in mustaqbalka dhow uu sii hayn doono madaxnimada El Salvador wuxuu hadda caddeeyey in hogaamintu ay u baahan tahay xeelad, geesinimo, dhiiranaan iyo faham dhab ah oo ku saabsan awoodda dalka. Dadka badankood markii hore wuxuu ula muuqday nin dhoola cadaynaya oo kaftan badan, laakiin dhab ahaantii waa hogaamiye xeeladyahan ah, qorshe degsada oo dhanka kale u bedelay xaaladda dalkiis. Waxa kaliya ee mustaqbalka la filan karo waa El Salvador oo tusaale dhab ah u noqotay dalalka caalamka, gaar ahaan kuwoodii ay daashadeen qalalaasaha iyo maamul xumida, isla markaana doonaya in ay ka baxaan oo ka soo kabsadaan. intaas ayaynu ku soo gunaanadaynaa mowduucan tan iyo mowduuca xiga oo aanu soo diyaarin doono. Sidaas iyo nabadgelyo, amaano Allah. Halkan waa Itaal Media, aniguna waa Aways Xaaji Nuur, Aways Ar. Nabaday.